markuu indhaha kala qaaday wiilku wuxuu arkay gabar si toos ah u eegaysa hooyadii ayaa u timid foodiisana dhunkatay iyadoo ku tiri inay diyaar u tahay inay nafteeda u hibayso si ay ugu mahad celiso wixii uu sameeyey maalin ka hor iyadoo David jidka marayay wuxuu arkay aqal yar oo dab qabsaday isagoo aan ka fikirin boorsadii ayuu dhulka dhigay wuxuuna ku orday albaabka oo gudaha u galay gudaha wuxuu ka helay gabar kursi ku xiran ka hor inta uusan dabku gebi ahaanba cunin aqalka isagoo xooggiisa oo dhan isticmaalaya ayuu dibadda ula baxay kadibna dhulka ayuu ku dhacay miyir ayuu beelay markuu soo toosay David wuxuu ku jiray hoyga qoyska gabadha wuxuu badbaadiyey gabar ku dhawaaday inay ku dhimato shilkaas waalidkeedu waxay muujiyeen mahadnaq qoto dheer waxay siiyeen dhar nadiif ah iyo cunto wanaagsan ka hor inta aan la cunin intii ducadu socotay gabadhii yarayd Mari si tartiib ah ayay gacanta David u qabatay wuxuu ku noolaa dhoola cadayn dabiici ah si kastaba ha ahaatee waalidku waxay ogayeen magaciisa oo kaliya taasi waxay ka dhigtay inay taxadar muujiyaan si loo hubiyo cidda uu yahay iyo halka uu ka yimid Mari waa la dilay kadib si dhab ah ayaa loo weydiiyey halkee ayuu u socdaa halkee ayay waalidkiisu joogaan David wuxuu sheegay inuu ku sii jeeday si uu ula kulmo waalidkiis laakiin ma aaminin sharaxaadiisa marar badan ayaa la weydiiyey inuu been sheegayo iyo in kale cadaadiska milkiilaha guriga markii uu soo dhawaaday wuxuu ku reebay David xusuustiisii hore dhowr maalmood ka hor wuxuu ka fogaa in ka badan 1,000 kiiloomitir waalidkiis way dhinteen wuxuu ku soo barbaaray xero dib u barbaarin ah maalin kasta wuxuu qabtay shaqo qasab ah markuu jiray 12 jir wejigiisu wuxuu muujinayay daal xad dhaaf ah xitaa mar uu ka fikiray inuu nolosha soo afjaro xerada macallin lagu magacaabo John ayaa u sheegay in kaliya isagoo noolu bedeli karo masiirkiisa habeen ka mid ah iyadoo la raacayo qorshe baxsi oo John diyaariyay David wuxuu bilaabay baxsigiisa iyadoo qof walba hurday John wuxuu siiyey warqad xiran si ay u gaarsiiso wadan ka fog in ka badan 1,800 kiiloomitir wuxuu uga digay inuusan furin ka hor inta uusan gaarin isla markaana uusan cidna aamin jidka isagoo raacaya tilmaamaha David wuxuu ka leexday askarta xerada wuxuuna gaaray derbiga markuu arkay calaamada wuxuu haystay 30 ilbiriqsi si uu u fuulo kadib waqtigaas korontada xayndaabka ayaa dib loo shidi lahaa intii uu fuulayay dharkiisu wuxuu ku dhegay shabaqa laakiin ilbiriqsigii ugu dambeeyay wuxuu ku booday jirid geed ku yaala beer banaanka ah waxaa yaalay xirmo loo diyaariyey safarka rooti mindi jiheeye iyo xabo saabuun ah laga bilaabo daqiiqadaas David waa inuu cararaa isagoo ka faa'iidaysanaya mugdiga habeenka wuxuu isku qariyay gaari xamuul wuxuuna raacay jihada koonfur intii jidka lagu jiray wuxuu la kulmay kontarool ciidan wuxuuna ku qasbanaaday inuu horay uga dego isagoo lugeynaya ayuu baxsiga sii waday dadkana ka dhuumanayay ilaa uu gaaray xadka marka habeenku soo dhacay xayndaabku wuxuu lahaa alarm mana taaban karin David si degdeg ah ayuu god u qoday markuu hoosta ka sii marayay wuxuu kiciyey askarta xadka wuu ka badbaaday laakiin kaarkiisii wuxuu ku dhacay godka nasiib wanaag wuxuu ku guuleystay inuu dib u helo ka hor intaysan askartu helin wuxuu durba ku jiray dhulka bolaan mana joojin karin nasasho looma ogolaan mar dambe wuxuu helay fursad uu ku fuulo meel sare oo uu ku galo doon wuxuu furay marin hoose oo gudaha isku qariyay marxaladii ugu horeysay ee baxsiga way dhamaatay hadda wuxuu u baahnaa inuu u gudbo waqooyi wuxuu ka talaabaa dhowr dal si uu u gaaro meesha ugu dambaysa Denmark laakiin ka hor inta uusan nasan badmaax ayaa arkay badmaaxu wuxuu ku hadlayay luqad David uusan si buuxda u fahmin laakiin xerada ayuu ku bartay luqada dhowr ah isagoo si taxadar leh u dhageysanaya way isfahmeen badmaaxu wuxuu sheegay inuu u sheegi doono kabtanka David si degdeg ah ayuu uga falceliyey wuxuu u soo bandhigay wax uu ku aamusiyo badmaaxu uu aqbalay markay dekeda gaareen si qarsoodi ah ayuu xadhig ugu dajiyey badda si uu ugu dabaasho xeebta David wuxuu warqadii ku qabsaday afkiisa wuxuu kaligiis ku dabaashay badda madow ee qabow markuu gaaray dhulka wuxuu ahaa mid aad u daalan markuu arkay muuqaalka hortiisa yaala wuu istaagay isagoo yaaban daqiiqad kooban wuxuu sii daayay xiisadii ku ururtay laakiin dhawaaqa diyaarad dul maraysa ayaa cabsidii dib u soo eliyey wuxuu ogaa inuusan istaagi karin David wuxuu dhex maray wadooyin nadiif ah oo iftiin leh laakiin si aad ah ayuu u taxadarayay had iyo jeer feejignaan buuxda ayuu ku socday wuxuu istaagay hortiisa dukaan wuxuu ahaa mid gaajaysan laakiin wax lacag ah ma uusan haysan milkiilihii ayaa soo geliyey wuxuu u sheegay haddii uu qabto shaqooyin yar yar inuu siin doono rooti marka hore wuxuu ka codsaday inuu dhoola cadeeyo wuxuu siiyey kaar uu ku sheegay in laga keenay ilaha rootiga isagoo sheegay inuu caawiyo dadka baahan kadib ayuu banaanka u baxay si uu soo doorto rooti cusub David wuxuu arkay ninka oo banaanka kula hadlayay askar wax yar kadib waxay gudaha u soo galeen waxayna weydiiyeen cidda uu yahay isagoo xusuusan digniintii John ahayd inuusan cidna aamin David si degdeg ah ayuu uga cararay dukaanka wuxuu galay kayn duurjoog ah wuu turunturooday wuxuu ku rugmaday hoos wuxuu istaagay markii uu geed ku dhacay jiheeyihii ayaa ku jabay diritaankii David wuxuu ku lumay kaynta